Puntland oo soo bandhigtay gantaale halis ah iyo warshado ay kooxda Daacish ku sameyn jireen qaraxyada iyo gantaalada maxay yihiin warshadahaasi qaab nuucee ah ayayse u samaysan yihiin muuqaalkan ayaan idinkula wadaagi doonaa daawadayaal laakiin intaan u guda gelin muuqaalka like saara si share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiin boggaana follow soo dhaha mahadsanidina aynu ku bilownay ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta gacanta ku dhigay ilaa iyo 3,000 oo gantaalo gacan ku samays ah kuwaasi oo kooxda Daacish ay doonaysay inay u adeegsato howlgallo kala duwan oo kooxdu ay qorsheenaysay inay qaado. Daacish ayaa doonaysay in gantaaladani ay ku dhibaateyso shacabka iyo ciidamada maamulkaasi oo howlgalka ciribtirka ka wada buuraha caalmiskaad ee gobolka bari. ciidamada ayaa sidoo kale ku guuleystay inay qabsadaan warshado macmal ah oo kooxdu ay ku sameyn jirtay gantaalada gacan ku sameyska. ciidamada ayaa maanta u daatay saldhig muhiim ah waxaana sidoo kale halkaasi lagu diyaarin jiray qaraxyada iyo sidoo kale waxa loogu yeeray gantaalada gacan ku sameyska waxaana laga yaabay halista ay diyaarinaysay kooxda ee laga hortagay ay ciidamada dowlad goboleedka Puntland ee daraawiishta ee maanta gacanta ku dhigeen. guulo waaweyn ayaa saacadihii iyo maalmihii la soo dhaafay laga gaaray howlgalka ciribtirka qawaariijta Daacish ee ka socda buuraha caalmiskaad ee gobolka bari. kooxda Daacish ayaa isaga carartay saldhigyadoodii ugu muhiimsanaa markii ay soo gaaraanba ciidamada dowlad goboleedka Puntland taasi oo suuro gelisay in gacanta lagu dhigo warshadihii ay kooxda ku sameyn jirtay qaraxyada iyo gantaalada gacan ku sameyska. ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Puntland ayaa howlgal soo bilowday saakay ilaa iyo soo gaaray caawa waxa ay ka fuliyeen qaybo fara badan oo ka mid ah buuraleyda caalmiskaada iyagoo sidoo kale ku qabsaday ceelka darinta oo ka mid ah goobaha ay sida buuxdo isaga baxeen firxadka kooxda Daacish ee ku jabay taga jacayla. afayeenka howlgalka ciribtirka argagixisada ee dowlad goboleedka Puntland General Maxamuud Fadhigo oo hadal kooban warbaahinta siiyay ayaa yiri ciidamada daraawiishta Puntland oo si qorsheysan u soo dhaqaaqay ayaa gacanta ku dhigay ceel darin oo saacadihii u dambeeyay lagu sheegay firxadka argagixisada oo baxsad ku ahaa kuwaasi oo isku dayay in ay gabaad ay ka dhigtaan goobtaasi ceelka leh balse laga hortagay ayuu yiri afayeenka isagoona tilmaamay in guulo waaweyn oo la mahdiyay ay ciidamada ka gaareen howlgalka ay halkaasi ka sameeyeen. daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada boggaana follow soo dheh sidoo kale qaybta iyo faallada inagula wadaag aragtidaada ku aadan howlgalkani ay sameeyeen ciidamada dowlad goboleedka Puntland isla markaana guulaha waaweyn ay ka gaareen. sidaad u jeedaan hubkani kala duwan waa hubkii kooxda ay diyaarinaysay isla markaana ay ku dhibaateyn lahayd ciidamada iyo dadka shacabka ee dowlad goboleedka Puntland.